waayo rabbi wuxuu yidhi ina ashaydaana lakum caduwan faاttakiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi asaciir. war ninka shaydaanka la yidhaah cadow ayuu idin yahay, caro alle ayuuna idiin shaqaynayaa, wax idin gaarsiiya inuu idin amro ayuu ku dadaalayaa. war cadow ka dhigta oo naseexaha ka qaadanina, oo dibindaabyadiisa ha ku raalli noqonina, oo waxuu idiin qurxinaya ha ka yeelinina. shaydaanka iyo axsaabta isaga raacda naarta saciiro la yidhaah ayaa xaabo looga dhigaa. haddaba walaalayaal, jirkeennu saciira ma xamili karo, cadaabka allana uma dulqaadan karno. ee rabbi ha laga baqo oo diinta ha la ilaaliyo oo cadaabka ha laga tago, sidaan lagu geli cadaabka si lagu galoo dhan ha laga durgo, oo adduunku yowsan nasiranin. war adduunku waa daar faaniyaa oo aan lagu waaraynin, maalmo yar ayaa la joogayaa. ee axad walbow rabbigaa ka baq oo diinta ilaali oo nabigaaga ku dayo sala allahu calayhi wasalam. saciiro dadkeeda ayaa lagu darin ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, saciiro ma meel la aada ah mase waa makaan loo shaqaysto? shayddaansan ma axad la raalli gareeyaa? waa axad laga caraysiiyo oo dariiqiisa in la khilaafo mutaystay. rabbi ka baqda oo sharciga ilaaliya. dadka sharciga ilaaliyaa shayddaanka uma adeegaan, xaaraanta markay arkaan ma fududaystaan, waajibaadka ma layacaan, sunnadana kama ay tagaan, ee wanaagga ayay dhab u ilaaliyaan. ee diinta alla ilaaliya, aada liibaanteen adduunka iyo aakhirada labadaba. rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadkaas aanu akrinay ee uu noogu caddeeyey shayddaanka cadownimadiisa iyo adduunyada inaan lagu kadsoomin. waxuu noo tusaalaynayey in aan adduunka ka dhiganno daar laga shaqaysto oo aan lagu sugnaanayn, ee aan u shaqaysanno aakhirada. wuxuuna rabbina dareensiinayaa shayddaanku inuu yahay mid noo qurxinaya adduunyada dhaldhalaalkeeda, diinta inay dhib badan tahana na tusinaya. rabbi wuxuu yidhi wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum. shayddaanka ayaa camalkooda u siineeyey oo u qurxiyey oo baatilka iyo qurun ka tusay. dariiqa xaqaana shayddaanku wuu ka xigsaday dadka. haddaba rabbi ka baqda subxaanahu wa tacaala oo xaqa ilaaliya. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bal tu'siruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa. waxaad doorateen nolosha adduunyada, xayaatada adduunyada ee danii'ada ah oo liidata oo aan qaymaha lahayn ayaad doorateen. aakhiro ayaa khayr badan, ayada ayaa baaqi ahaansho badan, meel loo shaqaysta ayadaa ah. rabbi ka cabsada oo aakhirada doorta. waa nolol lagu baaqi ahaanayo, waa nolol loo aayayo, waa meel aan laga soo laabanayn, waa meel qof walbaa tegayo, waa meel qofkii cidhiiri kula kulma uusan cidhiiriga ka baxayn, waa meel qofkii raaxo kula kulma aan raaxada laga saarayn. ayada doorta, u shaqaysta, adduunkana ka taga. adduunku waa daar aan qaymo lahayn. sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. bal iska day dadka maanta joogaa inay aakhiro doortaan amay u shaqeeyaane, sida ay u badan yihiin waxay doorteen adduunyada dhaldhalaalkeeda. sidee waxa lagu cunaa? xaaraan baa loo baneeyey. sidee baa shilin lagu helaa? dad islaama ayaa loo dhibay loona dilay. xayaatada adduunyada in la gartana dadka waxaad ku dareemaysaa waxay saacad walba u taagan yihiin qabyaaladda, waxay saacad walba u taagan yihiin see shilin lagu helaa, waxay saacad walba u taagan yihiin waxa carada rabbi lagu gaarayo, bani aadamkana lagu raalli garaynayo. wardad yahow dad islaama oo rabbigood yaqaano oo diinta alla ilaaliya noqda, yaana xaqa la layicine. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo adduunka noo sheegaya arrintiisu waxay tahay innamaa haadihi alxayaatu addunyaa mataac wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar. noloshaan adduunyadu waxay tahay oo kali ah waa mataac liidata oo maalma lagu raaxaystoo dhammaanaysa. aakhirada ayaa daarta lagu sugnaanayo oo aan laga soo laabanayn ah ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. suuratu kaafir ayuu rabbi sidaa ku yidhi nolosha adduunyadu waa mataac iyo maalmo raaxo yar oo la joogo. nolosha runtaa iyo daarta aan laga soo laabanayne loo aayayo waa daarta la yidhaha daarta aakhirada, waa daarulqaraar. haddaba akhi lmuslim wa ukhta almuslima, adduunka waa adigoo ahaaday maanta, berrina aan joogin. aakhirada waa adigoo ahaaday weligaana aan ka suulaynin. waxaa kugu wanaagsan kolka aakhirada waxaa ku anfacaya inaad diyaarisid oo adduunka kan aadan daar ka dhigan ee diinta alle aad ku socotid ood macaasida iska daydid. wa rabbigiinka cabsada oo xagga ilaaliya.
وحبك الدنيا إيا آخر هلمانك إسكدية وإن بدن هدي جركي نبهضو أمد بسو قارو أدونك إنو سندار راحة أهين أغادا وهدار عبادي سنيسان نعمة إنيسان إذين دمانين أغادا راحة قفك مسلمك وإلالينت الصلاة إيا هجاجينت الصونك قفك مسلمك عنتديس إيا قدديس إيا الدقنانتيس وأغرسك قرآنك علي إيا كردغن كيس إيا ذكرك الله إيا نبي كيس وكسل صلى الله عليه وسلم إيا دعوة إسلامك وكسقين يوم sidaas ayaa lagu garanayaa mu'miniinta ee rabbi laga baqo subxaanahu wa tacaala dadka islaamka ma ahan inay adduunyada daar ka dhigtaan ay ku mashquulaan war maxaad Allah subxaanahu wa tacaala waajibaadkuu idiin diray uga tagteen oo u la yacdeen oo markaas ka gadaal aad ugu la yacdeen waajibaadkii Allah idiin diray adduunyada oo rabbi idiin ballan qaaday nafaqadiina waayo Allah wuxuu yiri wamaa min daabatin fil ardi illaa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo cadeeyay naf walba risqigeeda inuu asagu kafaalo qaaday wixii Allah kuugu talagelay gafi maydid waxa rabbi kuugu talagelin helin maysid ee rabbiga caabud oo adduunka daar ha ka dhiganin daar ku noqon mayse ee u shaqaysa aakhiradaada oo rabbiga ka baqo war dhadhalaalka iyo raaxada adduunyada iska deeya war oon haddii uu idinku dhaco oonka ku sabra oo rabbiga darti haddaad u oontid xawdka nabiga ayaad ka cabi doontaa salawaatullaahi wa salaamu calayh وربي مركي درتي دباسة إذيسو قارتك صبرا وفك مسلم كاوالا امتحانا باهي لغو امتحانا عذر لغو امتحانا عدو لغو امتحانا انت صوتا وكو صبرا مركو وكو صبرا رد الله إيا جنة اللوغو بدلا أدونكنا وادار أنا يدو قيمة بلاهين يا ربي الله قبض سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وعويري ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ربي سبحانه وتعالى وحويري وحا ضاعدي ربي إذن كم مسؤولي إيا وحي عذابك ألا إذن ككل لها وحا إذن كم مسؤولي مكاثرة وعبدت الدنيا إيا إيولاد إيا الترو إيا تدكو إلى إسوفانان إلى كلمتين أو قبورة اللي إذن كدوغي إلى كلمتين أو قبورة اللي إذن كدوغي وحا إذن مسؤوليو دينتي إذن كحكتدي أو وحي عذاب ألا أتقبت دادي لهيدين ألا إلولين وتفاقر تكاثر بالدنيا تكاثر بالأموال والأولاد يا ربي كبغل سبحانه وتعالى مركز سجل على يو ربي نجس جري سبحانه وتعالى وحوليري وحا حق أوصغن oo ay runtu tahay inaad ciribta xumada ogaan doontaan faanka adduunyada mar dambe aad ogaan doontaan marka mawdku idinku soo dego oo xayaatada adduunka ka quusataan oo qurbadu meel walba idinka dabooso oo meel walba sallay idinkaga yimaado oo maalmarintiina indhaha saartaan maalintaasaad xaqiiqada ogaan doontaan ee dad yow islaamka rabbi ka cabsada rabbi ka baqda subxaanahu wa tacaala adduunku daar ma ahan lagu sugnaanayo ee ha ka dhiganina daar وحكدقة مال لغا سقيسته لغا سعودت والدنيا فإنها دار النفاس والدنيا دو تجد دار تيدا وارثين محل كيد معها ومركب لغو قدو منزل لغو فرحا معها ومال ليمادو لغا سقي مال لغو وارا معها سيدا درتي ددك براروي او خير كله او عقلك بدن وددك الزهاد ضاعدا على اسوتاغي ورادومدا الله ادونك دراغا او في النبي سكعبسدا او عمل صالح مركب كدغتا ادونك دبكيسا اوغا بخدين الله أنا هاي إدين جرجارو آدنادي سجارتين وهلا جلاله الله على قبضه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحويري أو كير سورة الليلة سورة المنافقون آية كجرتا يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وردتك إسلامك وآيات إيجا وردتك الله هي آيات سيسة هي النبي محمد الرمي صلى الله عليه وسلم ييسن إذن كم مسؤولين حولها هي أولادين ييسن إلهي ذكريسة هي الداعة الله هي إلالين الدين إذن كم مسؤولين ذكي أدونك أغم مسؤولة إله دين تيسة أما إلمه هو ذكو مسؤولة إيسني سيل لقول راديا واجباتك الله كل يعا ودينت إلهي كروايا ذكي خساري أو دلوبي أو عذابك ألا قريا وقوة أو كريئة أيو ربي سبحانه وتعالى وحيلين عذاب وحيلين عراء الله وحيلين مصائب أوردن سلاس أيو رب النعزة سبحانه وتعالى ورغف الله غفكي إلهي الدين تيسا أغم مسؤولة الدنيا الرادي
iyo ilmaan korinayay ee wixii rabbi u diray layaca ama wixii rabbi ka reebay dhex gala saa lacag ku heshaana u dhex gala wou khasaaray adduunka iyo aakhiradaba nolosha wuu ku khasaaray waryaanan khasaarin waryaanan dulloobin waryaan saqaro naareed idin seenanin waryaan samhariiro laydin seexinin waryaan saadkiinu xaaraan noqonin wa rabbigiin ka baqdoo saad qaata oo u saad qaata xagga aakhirada oo saadkiina ka dhigta cabsida alle waryaan dhibaato iyo kurba idin hareeraynin ee rabbiga kariimkaasi badhaba uga baga oo adduunku kan waa meel dulli ah oo danii ah oo hoosaysa ee waxaa ka sharaf iyo wanaag ka hela dadka daliilku ilaaliya oo diinta alle u gargaaroo daa'imkooda ka dambeeye rabbi ka baqoo xagga ilaaliya rabbi ka baqoo xagga ilaaliya rabbi ka baqoo adduunka ka soo jeesta rabbi ka baqoo aakhirada yaan la iloobin war yaan aakhirada la iloobin war adduunkii waa ayaa la jeclaado aakhirada waa la iloobin war musiiboo dhan waxay dadka ugu timaadaa inay dadku masiirkooda iyo aayahooda iloobaan war aayaheennii waan ilownay aayaheennu waa xagga aakhirada waa la garan waayo waa la iloobay adduunyada waxaa addunyaa loogu bixiya waa mid dani ah ee hoosayda dadkeeduna way hooseeyaan inta ka daba carartaana waa kuwaan qaymo lahayn war muslimiintow arka xaqiiqada adduunyada fahma rabbi gargaarkiisa ayaad gaari doontaan haddaad wanaagga ku dadaashaane